السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري سودة دواذا ولا لهيك قالي قاعد بعد ما هسنتهين ما شاء الله dadka igu cusub oo subscribe-ka cusub siiyay aad baan ikiga mahadcelinayaa mahadsanidin waa isku leenahay anna waxaad igu leedihiin inaan idiin soo mahadceliyo sida quruxda badan ee qiimaha badan ee maxaa subscribe-ka igu saarteen sidaad ii daawatiin waa ku mahadsantihiin maasha allah maanta maxaa inoo wadaa maxaan ka hadlaynaa horta baryahan waa isweyne iid wanaagsan I hope inaad nabad iyo kheyr iyo barwaaqo iyo bashbash igu iideen anna sidoo kale iid wanaagsan ayaan ku iiday inkastoo weli iidihi aan iskaga dhex jirno oo beriya u dambeysay aan leenahay Somali community iidoodii aan leenahay maasha allah aad ayaan iskaga baashaalayna waa idin caafimaad qabnay waa idin ladanahay alxamdulilah rabbil caalamiin I hope adinkana sidoo kale inaad ii caafimaad qabtiin ii ladantihiin ii baashaalaysiin maasha allah tabaarakallah intaa markaan kasoo gudbo maanta maxaa noo wadaa wallaahi run ahaantii maanta waxaan la ooyay wiil walaalkay Baba J ayaan la ooyay wallaahi soomaalida waxaa bad is leedahay bo maasha allah yacni inta yaro xun baa nagu soo yaro badbadanayso ma isdhahdeen yaa Baba J ooynaya maanta arka ooynaya dee wallaahi bilaahi maanta waxay ii ahayd baan u maleeyaa maalinta oohinta iyo ciilki iyo carada iyo maxaa la dhihi jiray baba ii ahaydaan u maleeyaa gabar kale ayadana ooynaysa waa arkayay laakiin dabcan taa ka hadlaaya hadda waxa weeyaan Baba J tiisa Baba J aad baan aniga laftirkaygu ula ooyay run ahaantii markuu dee iska sheekeeyey oo asaga qofku uu yahay uu ka sheekeeyey oo maxay ahaydtay dabcan waxa la yiri qof walba horta wixii dhibaa dheelmiyaa la yiri wixii asaga dhibaayay uu dhibaatadiisa ka hadlay uu ooyay markuu ooyayna wallaahi aad ayaan uga xumaaday uga calool xumaaday maana hore waxaan arkay sidoo kale wiil kale oo uumiyaadka ilaahay lagu caynaayo meel uu la-ay ma jirto dabcan waa nin lixdiisa lixaad qabo laakiin indho yaryaroo god ku jiro shiino camal ah baa lagu caynaya dabcan wiilkaas marka ilaahay wana subxaana watacaala horta intaan Baba J dhex gelin uumiyaadka ilaahay way badan tahay 100 uur hooyo kasoo wada baxday ayaa qaar indho waaweyn haystaan qaar timo jireer haystaan qaar san gaaban haystaan qaar san dheer haystaan qaar af ilka lakab haystaan oo foolxun qaar ilka qurux badan haysto maxaa la dhihi jiray qaar ilka qurux badan haysto qaar weji qurux badan haysto qaar weji foolxun haysto body qurux badan haysto ilaahayga weyna subxaana watacaalaaba ma simin bilo aadanka sababtay tahay nama simin inaan ku camal qaadano ku cibaadaysana ayuu ilaahay ugu tirigalay waxaan waa uumiyaadka ilaahayna qofkii wax ka sheego ama ku dhibaateeyo waa damiir xumidiisa dadnimo xumidiisa iyo aqligiisa ayay meesha ka gaadhay sababtay tahay uumiyaadka ilaahay alxamdulilah rabbil caalamiin qof walba ilaahay sida uu uumay inaan ku xamdino oo ilaahay ku mahadino ayaan mar walba leenahay waayo qof iska bedeli kara ma jirto haddii qof walba qofka kale uu iska bedeli lahay dadka qof walba wuxuu iska dhigi lahay sida asaga uu jecel yahay laakiin ma jirto tani waa uumiyaadka ilaahay tani waa gacanta ilaahay wax ku jiro tani waa wax ilaahay weyna subxaana watacaala uu suureeyo wax bilow aadan uu suureeyo ma ahan guryaha aan deganaha maalina dhinac kuraasta u rarnaa maalin dhinac kasoo joodina maalin dhinac kale usii rarnaa ma ahan taas tani waa ilaahay weyna subxaana watacaala gacantiisa wax ku jiro marka qof walba siduu ilaahay u uumay oo ilaahay uu ugu tiragalay waa inaan ku xamdino waa inaan ku mahadino of course haddii aana ku mahadinin dee adi unba uqdad nafsi ku dilaysaayo cimri degdegaya sideedana
cudurka ka lagugu soo sheego uqdad naftiga ka qaaday iyo kaada ogaanoo jirkaaga ku jiro oo aad wadatid kaada ogaanoo jirkaaga ku jiro ayaa difaac u leedahay laakiin wax marka lagugu soo sheego difaaca ayaa dadka ka yaraada uqdad wuu ku dadejina uqdad nafsigana marka taas ayay la mid tahay annaga haddaan Soomaali nahayna waxaan ku dheerayna waxa weeyaan qofka iyaga liita inaan ku istaagno cagta saarno oo cagta ku waxayno kaayaga waxa haysta oo cirka maraayana inaan cirka sii geyno oo aan kor u sii qaadno ayaa muxuu ahay dabeecadanada ah islaamnimadana sida ayada kuma jirto islaamnimada waxa ku jirta waxa weeyaan ka liita inaan hoos u eegno kaayaga kaba kan ka sii liito waa inaan isha ku eegno oo aan fiirino marka alxamdulillaah rabbil caalamiin naxariistii nagama guurino dad naxariis badan ayaa nagu jiro laakiin samanadan dambe waxaad isleedahay dad badan oo yar waalan baa maxay ahayday baraha bulshada ku soo badanaya ama Soomaali ahaanba ku soo badanaya ayaad isleedahay marka hadda qurbaho kale marka la joogo qofka wixii uu qabo oo asaga dhibaayo ma tusaan gaaladan aad arkaysiin ma tusaan ya adaa adduunka ugu qurux badan adaa adduunka ugu wacan adaa adduunka sidaan ugu ah waxay ka dhigaan niyadday u dhisaan maskaxday u dhisaan maskaxda iyo aqliga ayay ka koriyaan garanaysaa maskaxda iyo aqliga ayay ka koriyaan annagana kaayaga yar xanuunsanaya kaayaga aqliga qabee maskaxda qabee maasha allah baa maskaxda kasii dilaynaa oo leenahay halkaasaad leedahay sidaasaad tahay kan baa tahay which is wax loo baahan yahay ma ahan dabcan mawduucan waan ku fogaaday laakiin Baba J ayay ahayd maanta waxa aan u soo galay I think qof walba wuu arkay Baba J markuu ooynayo maanta bashqada ay soo dhacday waayaan ma ka siin waxa markay bashqa jiimarkii soo dhacday wili afadiyaan tusayaan lahay bal adaa waxaan xogaa ingiriiska taqaanay firi bal maxaa dhacay wuxuu yiri fiidiyoogana copyright lagu haystaa fiidiyoogan dib ugu laabanay waa fiidiyo ana aan la kulligii wada fiisteen oo fiidiyooga xafladda ay ii sameysay wiilo taakooda ka dhan wada taqaanay xafladeeda boqolku markii aan gaaray inta xafladeeda waa fiidiyo asaga uu leeyahay oo xalfadiisi ahayd ayaa lagu qabsaday oo liir waa copyright marka Baba J cajaladiisii oo hawada laga saari raba ayuu arkay internetkiisa hawada ka bixi raba waa wiil walaalkood wuxuu yiri ma shaqaysan kara oo xamaali ma noqon kara waayo nin waxaan ahay aanan xamaal iyo tunku waxba ku qaadi karin wuxuu yiri aqoon aan ku shaqaysta malihi dabcan wadanku u joognana waan wada ognahay wadamo badan oo xoogiisa uu maali lahay oo ku shaqaysan lahay sida qurbaho kale way jiraan laakiin wadanku joogo oo wadankayga hooyo oo muxuu ahay to qarax uu ka dhacayo oo rafaad uu ka dhacayo oo ku nool yahay Baba J qofka ka xiri waxa la yiri waa qof passport wata maxaad ka xiraysaa walaalkaaga maskiinka ah oo aan hanti haysanin oo ku yiri waxa dadka yaqaan markaan dadka yaqaan meel iskiga hor imaana meel aan ku kulana ayaa waxaan dhahaa waxay isiyaan amal baan ku noolahay buu yiri waxay YouTube-kayga soo galaan reerkayga iyo family-gayga ku masruuftaa walaalka qofka xaasidnimada noocaas oo kala ah ee daciifka ah ee ku jirta xaasidnimada noocaas oo kala ah ee daciifka ah qofka ay ku jirto oo qof walaalkii ah meel ulmo biil ka biilanaya ka xiranaya oo ka hor istaagaya ma dhihi karnaa naxariista bilo aadanimo ayaa ku jirto su'aasha waa may maxaad ka xastay Baba J afkiisu maalaa wuxuu ku yiri muruq maal ma ihi af maal baan ahay qof afkiisa maala ayaan ahay waxa YouTube-ka iga soo gala waxa friends iga soo gala
ayaan biishaabu ku hiri oon ilmaha ku korsadaa bilaa caleeg yacni ilaahayga weyna subxaanahu watacaalaa xoogga aad wiilkaa ku dacweysay xaniyahaad wiilkaa ku dacweysay haddaad gabar tahay haddaad nin tahay maskaxdaa wiilkaa ku dacweysay waxaa wiilkaas aa ku dhibaataysay miyaadan ka baqayna allihii weynaaye subxaanahu watacaala ku qalqay ee ifka ku keenay ee ku nooleeyey inuu saacad nafta kaaga qaadi kara inuu saacad adduunka kugu dhaafini kara inuu 1 second adduunka kugu dhaafini kara yaa kaa cafinaya dhibaatada aad u geysanaysa wiilkaa walaalka ah soomaali maxamedey haddaanan isgarab qabanin haddii aanan iscaawinin haddii aanan is helbagaraynin haddii aanan wanaagga isfarin haddii aanan xumaantada iska waaninin haddii aan dhibaatada iska qabanin meel xun baa noo dambeynaysa waayo qoon kasta oo la halaagayo sabab la-aan lama halaaga laakiin sabab ayaa jirta lagu halaaga waa allah subxaanahu watacaala ku halaaga waxyaalaha waxaan nahay dad ilaahay maskax siiyey aqli siiyey aqoon siiyey maskax siiyey baan nahay inaa kaayaga naga hooseeyo aan ilaalino oon tixgelino oo aan qiimeyno oon ilaalino ayaa muxuu ahaytoo naga saaran yahay mas-uuliyadda kaayaga dhibaataysan inaan garabkiisa istaagnan way mas-uuliyadda naga saaran tahay ma ahan kaayaga dhibaataysanna cagta hoosteeda gelina ma ahan kaayaga liita inaan cagta hoosteeda gelina ma ahan kaayaga u baahan garab qabashada inaan garab qabanno oon tabaan taabalayna weeyaan muhiimadda qadada qof qada haysto oon qada ugu darayno waa inaan iska dayna waa inaan dadkaan qadada haysanin aan dib u eegna waa inaan isha ku eegna dariska laftirkiisa xaquuq ayuu kugu leeyahay Baba J oo hinta maanta ka soo baxday ee uu la ooyay asagoo nin rag ah uu yiri nin rag ciil kaga daran cadaab wallaahi waan la ooyay maanta Baba J ushaas baan wataa buu yiri oon ku burdoodaa oo aan ku socdaa muruq maal lama ihi af maal baan ahay buu yiri afkaygaas waxa aan ku keensada oo aan ku shaqeysta ayaan ilmaha ka biishaa buu yiri subxaanallah qofkii Baba J xalfadiisana dad asaga dhibli u yaqaana ayaa joogay qof kale oo kor ka imaaday ma joogin walaalayaal wallaahi fariintan qof kasta oo Soomaali ah way qusaysaa wanaaga hal faafiyo xumaantana hal qariyo waa waanada iyo talada aan u diraayo Soomaali Maxamed kaayaga liitana aan garab qaban Baba J-na hala garab qabto Baba J-na waxaan leeyahay Baba J waxani waa adduunyo maanta haddaad qadadaada haysatid biri ayay kuu gambin kartaa waad ogsoon tahay annagana waan ogsoonnahay waxuu rabbi keenina ma qadirna bilo aadankana sidoodaba dhib ayay ka samaysan yihiin inta wanaagga ka samaysan iyo inta dhibka ka samaysan haddayna isku barbardhacaynin waxay kala liitaan baa iska yar waa dad isku barbardhacaya sanadyadan la joogo xumaata ayaa badatay caydi ayaa badatay warada cadaabka ayaa batay dadka la qaawinaya ayaa batay xumaatadii ayaa badatay sharafta meel looga dhaca ayaa badatay waxaan ku leeyahay walaal macaan afka ashali ku shaqaysatay ilaahay weyna subxaanahu watacaala ayaa kuugu deeqay haddii xibnahaaga meel ka mid ah aadan ku shaqaysani karin oo sidaa rabta ugu ciil bixi karin ilaahay wuxuu ku siiyey xibno kale oo ka badan oo aad ku shaqaysan kartid oona ku ciil bixi kartid nin rag ah waa run ilaahay baa kaa dhigay nin rag ciil cadaabka doori baa tiri dhib ma laha waad ka soo kabanaysaa waanad ka kacaysaa qofka bini-aadanka marbuu kufaa buuna hore uga kacaa uu usii socdaa waxaan ku leeyahay keep going don't give up horay u soco samarna yeelo wax kasta oo aad aragtidna weligaa xumaan ha faafinin
wanaagga aad ku socotid ku soco adigana ajirkeedii iyo abaalgudkeedii ilaahay ayaa ku siinaya waa abaalgudkii ilaahay gwana subxaana wa tacaala ba ku siinaya marka waxaan ku leeyahay hore u soco baabijay cajaladii hadda waxaan arkaya iyadii miyaa ma aqaan lagu soo deeyey galabta hore oohintaada way dhiftay meel baan u socday xalfad ah waan kay soo yara daahay laakiin waxaan ku leeyahay keep going aniga facebookadan kaa daawan jira laakiin maanta ayaan ku arkay oon subscribe-ka kuu saaray iyo liketa waana ku follow garayn doonaa insha allah bilaahi kariim hore u soco ayaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu